السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caadooyinka dadka reer Garowe aad u jeclaysta waxa kamid ah akhyaarta inta aan qaadka cunin galabkii marka salaada casar la soo tukado ba shaah take away inta la soo qaato ba magaalada laga soo baxaa markaas waxa la yimaada dooxada nugaal iyo halkan bixin iyo biyi dareerayaan naqo baxay oo shimiru heesayaan waa beautiful afternoon ma sha Allah waxa xusid mudan rag badanna inay ku jiraan meelo huur ah oo qaaca iyo qaylada iyo dhididka iyo suuca inta isqabsaday halka qaal lagu cunayo raggaas waxaan leeyahay kelmadii had raawi hore u yiri Allah u naxariiste ka soo baxa eelka qaadka adduunka ragow markaale waan leeyahay waa meel qurux badan oo qofku maskax ahaan cabaar peace and quiet kaas xasilooni maskaxeed inta ku siiso haddaad doonaysid inaad article qortid ama aad rabtid inaad fikir ka dhex guuxaya aad maskaxda tusid waa meelaha aniga aragtideeda ku haboon waxa laga yaabaa dadka qaar inay si kale ugu baxdo aniga laakiin sidaan ay ugu baxdo aad baan idin salaamayaa Allah idin barakeeyo meelaad joogtaanba su'aalayaasheeda iyo sheekooyinkii kala qaad kama dhamaadee ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ummadda qaad ka qabto very serious markaad baadiyaha iyo gobolada iyo tuulooyinka wareegtid baad really arkaysaa saameynta dhabta ah ee uu qaadku leeyahay waxaad qiyaastaan reer baadiya ah oo dhulkaa dheer ku nool dhulkaa dheer waxaan ka wadaa meel wax darisay wax tuulo fog ma ahan aan cidna ku dhaweyn odagina inta iska tagay qaad iska doontay oo hadduu rabo waa dibooday oo dhaankii iyo ritigii iyo wixii laga sugayo waa la dibooday bal reerahaas ka warrama no meel ay caawimaad ka soo qaadan karto waxa laga yaabaa carruurta inay oon iyo gaajo u baktiyaan u dhintaan marka ilaahay ummadda qaadka ka kor qabtaan idin leeyahay meelaad joogtaanba aad baan idin salaamayaa galabta hadii macnaata fatuuradaas wata inta in ka badan hadaan hore u sii socdo waxaan ka baqay inay gooja cad ila gasho wadadan oo wadadii Laascaanood marka waa mar kale waan safarka sameyn doonaa laakiin galabta halkaan ku kala wareegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh